waxaan soo socda kow xikaayada koowaad youtube-kay ku jirtaa waadna arki doontaan nin gaal ahaa ayaa markii lagu soo xaadiro geeridu ku soo xaadirtay ayaa waxaa la yidhi ilaahay ma taqaanaa ma qaanu rasuulka ma taqaanaa maya maxaa taqaanaa sheekh cabdulqaadir jiilaani baan aqaanaa sheekh cabdulqaadir jiilaani baa taqaanaa soo maaha naarta u kaxeeyaa le waa la kaxeeyey naartii markii la geeyey oo naarta la geliyey ayaa sheekh cabdulqaadir jiilaani oo gurmadaa yimid kadibna wuxuu yidhi haddaad ninkaasi naarta iga geysaan naarta dhan haraate baan ku dhufanaya maxaa dhacay markaasaa waxaa la yidhi war intuu naarta inaga haraatin lahaa gaalkiisa jannada u geeya warkaasi youtube-ku ku jiraa nin baa ku hadlaya suufi ah walacallakum inaad dhegaysateen soo maa meesha maxaa ka muuqda sheekh cabdulqaadir jiilaani baa ilaahay intuu ka baqay ayaa gaalkiisa loo sii daayey oo la yidhi naarta yuusan inaga haraateen soo warku sidaa maaha kaafir kastoo adduunka soo maray gaal kastoo adduunka soo maray muctaqad kastoo gaalnimo ah oo heerkaa gaadhsiisan inaad aragtaan waa yaryahay ma fahamteen caamayga muslimkan waxba akhrisanaya fidrada ku nool sheekh cabdulqaadir jiilaani baa inta laga baqay baa gaalkiisii naarta laga soo saaray oo janno loo geeyey ma aqbali karo annaga haddaan aqbali weyno marka ma khawaarij baanna yaa ma khawaarij bayna kulligan baa khawaarij noqonaynaa marka aan isla noqonno soo maa mid kalea wuxuu leeyahay isagana youtube-ku ku jiraa waad dhegaysan doontaan ama horaad u maqasheenba social media ku jira wuxuu leeyahay waxaa jiri jirtay way ahaan jirtay sheekh cabdulqaadir jiilaani ninkii sheega magaciisa isagoon weyse qabin markaasuu dhiman jiray sheekha magaciisa haddaad sheegtaa adoon weyse qabin markaasaa dhiman kadib dadkii baa rogmaday sheekha magaciisa weyse qabla-aan uun la sheegahayaa lagu baaba'ay kadibna sheekhii baa loo dacwooday war sheekh cabdulqaadir dadkii rogmadaa la yidhi magacaagaana lagu rogmado lagu tawasulhayaa weyse la'aan sheekhii ilaahay buu baryey kadibna arrintii ummadda waa laga dulqaaday walu fiirsada ilahay baa idinku dhaariyey ilaahay magaciisa iyo dikrigiisa waa la xusi karaa adoon weyse qabin biijmaaci alculamaa adoon weyse qabin ilaahay waad xusi kartaa magaciisana waad sheegi kartaa biijmaaci alculamaa khilaaf kuma jiro dariiqadiina waxay tidhi sheekh cabdulqaadir jiilaani magaciisa weyselaan haddii la sheego waa lagu dhiman jiray hal yusadiqu hada caqlun saliim yaa caqli fayowmiyaa waxaa rumayn kara ayib ka daroo dibi dhalwad mid kale wuxuu leeyahay sheekh weys buu ka hadlaya isaguna sheekh weys iyo culimo fara badan mucjizay lahaan jireen buuli oo mucjizadii nebi ciise oo kale ah markaasa wuxuu keenay qiso wuxuu yidhi sheekh weys iyo xertiisa ardadiisa muridiintiisa ayaa qolo soo martiyey buuli isagoo ardadiisa la socota sheekhii waa la fadhiisiyey noo fadhiisaa la yidhi waa la marti qaaday isagii ardadii way fadhiisteen rati baa loo qalay neef geela neefkii markii haraggii laga siibay ayaa waxaa dhacay khalad ratiga la qalay midkay lahaayeen meehee nin kale mid uu lahaabay ku khaldeen markaasaa sheekhii waxaa lihi sheekhow rati baan idiin qallay markaan idiin qallayna ratigii nin kalaa yeeshay ka annagii iyo kiisii baa isu ekaaday ninkii ratiga lahaana meeshanuu noo taagan yahay ratigiisii buu rabaa wuxuu leeyahay haddaad 20 rati oo kale isiisaan idinka yeeli maayo kaygiinu siiya war sheekhu maxaan fallaa
sheekh weysow bal xaajadan ka tali ratigii la qal haragii laga siib in la googooyo un baa laaban hilibkiisii ninkii lahaana meeshuu taagan yahay wax kalena ma rabo bal sheekhow tali baa layidhi wuxuu yidhi sheekh weys aawe ratigii waa kana layidhi waa qalan yahay haraggiina waa laga siibay hilibkii la jarjaraa laaba markaasaa wuxuu yidhi haragga saara ratiga ku celiya haraggii baa la saaray buuri markaasaa wuxuu yidhi qum biidnii ratiganow idankayga ku kac buu yidhi laa biidni illaahi idanka ilaahay ma aha aniga sheekh uweysa idankayga ku noolow oo soo kac ratigii waa soo booday buuri waa bagaaba isagoo nool ordahay ninkii baa ratigiisa le warsigaaga qaadaa le okay nebi ciise calayhi salaam mucjizaadkiisii waxaa ka mid ahaa dadka dhintay buu soo noolayn jiray laakiin muxuu ku noolayn jiray yaa biidni illaah sheekh weysna muxuu ku nooleeyey wixii dhintay biidnihi laa biidni illaah soo kufri ma ah yaa awood ilaahnimo la sheegtay awood ilaahnimo baa la sheegtay ayadana social media aad ka helaysaan xikaayada afaraad sheekh cabdulqaadir jiilaani ayaa waxaa dhintay nin muriidkiisa ahaa hadda ka horna waa idiin sheegay iyadoo way qoranta malakulmowd baa isagoon ka idan qaadanin sheekha warna gelinin ayuu muriidkiisii u gacan dhaafay kadibna muriidkii baa nafta laga qaaday muriidkii markii lala tegey muriidka hooyadii ayaa sheekh cabdulqaadir jiilaani u timid markaasay dee sheekhow wiilkaygii adigana muriidka ku ahaa waa lala tegey oo yaa qaatay malakulmowd baa qaatay meeshii buu sheekh cabdulqaadir jiilaani ka gurmaday malakulmowd oo dhexda sii socda oo naftii muriidka wata nafafyaal kaloo uu soo qaadayna dembiil ugu jirto oo meel sii marahay yuu sheekh cabdulqaadir jiilaani ka daba tegey baal dharbaxa iska qabayay il iyo dhag buu gooyey malakul jiin waa ka wareeray kadibna dembiishii baa ka dhacday wixii naf ku jirtay dembiishaasoo dhan kala yaacday kadibna muriidka naftiisii soo fakatayoo muriidkii bay ku soo noqotay jidhkii bay ku soo noqotay muriidkiioo socda ayaa sheekhu u yimid hooyadiina u tegey bal taana qasada waa qiso kale malaa'igtiiba waxaa ka xoog badan oo balaaya ka dhacday sheekh cabdulqaadir jiilaani xikaayo kale oo iyadana mashhuura horey baan idinku sheegay taa iyada ah waa xikaayadii yaa salmaan yaa salmaan soo garan maysaan soo idinku celiya ayadaasi sheekh mashaaikhdooda ka mid ah warkaa sheegaya waa wadaadkii sheekh maxamuud ahaaye ee gobollada dhexe ka dagaalamahay iyadana horeyna waa u sheegay youtube-kana waad ku aragteen iyo social media wuxuu leeyahay nin awliyada ka mida oo samada fuuli jiray oo kor aadi jiray ayaa dhaqaaqay buu yidhi markuu samada fuulayo wuxuu dhihi jiray yaa xanaan yaa xanaan yaa xanaan markaasuu dhaqaaqi jiray nin khaadim u ahaayo muriidkiisa ah oo arday u ah baa wuxuu yidhi sheekhow inaan ku raacaan rabaa oon kula duulo sheekhii wuxuu ku yidhi waniya ma kari kartida maadan gaadhin meeshaada iska joog maya sheekh inaan ku raacaan rabaa ilaa wallaba kaama hadhahay haye hadday saas tahay markaan dhaqaaqoodii aragto anugu waxaan dhahay yaa xanaan yaa xanaane adugu waxaad tidhaahdaa yaa salmaan yaa salmaan yaa salmaan salmaanku waa magaca sheekh magacayga qabso anugu markaan yaa xanaan ku duulahayo magacayga agugu ku duulo yaa salmaan dheh waa la dhaqaaqay hawada sare markii la marayo muriidkiina uu ku hayo yaa salmaan wadaadkiina uu daba duulahay
ayaa markaa ibliis baa u yimi muriidku u imaanaya markaasaa wuxuu ku yidhi war heedhe magaca ba'yi waad gaalowday magacan aad ku dhawaaqayso ee sheekha soo ma maqlaysid magac sheekhaagu wuxuu ku dhawaaqayo haa muxuu leeyahay yaa xanaan magac ilaahay buu ku dhawaaqaya adiga magaca ba'yi magacan wadaadka intaad haysato ma magac ilaahay qabsatid yaa xanaan ma dhahay muriidkii warkaa waxbuu ka fahmay markaasuu bilaabay inuu dhaho yaa xanaan yaa salmaankii waa iska tuur yaa xanaantu bilaabay wuu soo dhacay markuu soo dhacay sheekhaa qabtay markuu qabtay waa la isla soo degay marka dhulkaa la isla yidhi sheekhii buu wuxuu yidhi sheekhow markaan yaa salmaan lahaa waan socdo waa duulahayee magaca ilaahay markaan qabsado yaa xanaan aan idhi maxaan u soo dhacay wuxuu ku yidhi waxaad u soo dhacday adigu caarif ma tihid caarifkaa ku duuli kara magaca ilaahay maada aqoonin waayo caarifku waa martabo ay suufiyadu gaadhaan say iyagu sheego maraatibtooday ka mid laakiin waxaa taqaanay buu yidhi nin caarifaad magaciisa taqaanay oo aniga ah anigoo caarifoodii taqaanaad magacayga ku duuli kartee laakiin magaca ilaahay ee xanaan ah nin caarifaa ku duuli kara saas daraaddeed markuu shaydaan ibliis ku lugooyood xagga u boodday oo adiga soo dhacay buuri halkaasi maxaa ka muuqda marka ibliis baa dadka tawxiid baraya yaa sheekhiina shirki buu baraya ibliis baa u yimid oo muriidkii baraya war yaa salmaan iska daayo yaa xanaan qabso magac ilaahay qabso ibliis baa baraya sheekhiina muxuu baraya war magac ilaahay haddaad qabsato waad dhiciya ka sheekha qabso yaa wax caqli ilaahay baa idinku dhaariya u rumayn karaa waxaas weeye waxa la isku maagaye iyo wax la mida weeye nimayo waxaad aan noqaysaana waa khawaarij waa wahaabiyo tola'ayay diintiiyey dariiqooyinkii loo soo dhacayay waxaasaan diidnay annagu waxaasaan diidnay oo aan idhi diin ma aha kufriga la leeyahay dadkaad gaalaysiiseenna waxaasaa kufriyaad ah ruux kasta oo muslimoo fitra ku noolo xataa waxba aan baraninna wuu garanayaa waxaas inuu kufriyaad yahay waxa marka la leeyahay waa wahaabiyo waa khawaarij waa gaalo waa kan qabta la leeyahay taa iyada waa inaad intaa fahantaan tusaalayaal baan u soo qaatay way ujeedadu ahayd waxaa isweydiin la marka wadaadadan dariiqooyinka qaar badan oo waxaa jira culimo ah ficlan oo tafsiirka akhriya oo xadiidka akhriya oo luqada akhriya oo fiqiga akhriya shirkiyaadkan caamadiiba la yaaban tahay maanta noqday xataa youtubeleydu xataa inay ku qoslaan oo ku maadaystaan noqday maanta maxay nimankani u fahmi la'yihiin ama dadka uga digi la'yihiin su'aal isweydiin lama aha kutubtii axaadiistay akhrinayaan tafsiirkii bay akhrinayaan fiqigii bay akhrinayaan culimaa ku jirta maxaa ku dhacay waxaan caamadii baaba garanaysa inaysan diin ahayn soo su'aal isweydiin lama aha su'aashaa waxay dhan ka jawaab su'aashaasi dhowr waji baa looga jawaabiyo jawaabteedu waxa weeye ruux bini aadamka hadduu tarbiya mucayana ku koro oo caqliga laga xidho caqliga haddii lagaa xidho ma fikiraysid caqliga bini aadankana inta badan yaa cilmiga sidiisuba la socdaa cilmigii caqligu ma kala maarmaan haddii marka caqligii lagaa xidho oo la yidhaahdo waxaan caqliga bini aadamka waa ka koreeyaa lama fahmi karo baxar buxuur baa la dhahaa baxar awliyo waaye yaa halkaa lala maro marmarka qaarkoodna lagu yidhahdo majaas baa la dhahaa waa majaas iyo kinaayo iyo isticaara la yidhaahdo waa baabaydaan fahmi karin caam wey yaa halkaa markaad joogto caqligaagii waa xidhan yahay wax caqliga bini aadamka ka weye baabka awliyadu yahay isku gelin su'aal ha isweydiinin qalbigana ilaasho halkaasaa la xidhay marka haddii sidaa lagu xidho waxyeelihii badiihiga ee bannaanka yaallaya xataa dadka caadigii fahmayeen ma fahmi kartid laanna caqligii caadigaa wax lagu fahmi lahaa waa lagaa xidhay qodob waay sidaas daraaddeed waa maqsuudka uu leeyahay imaamu shaafici caleyh raxmatullah